Ethiopia dhibaatooyinka hadda ka jira Ethiopia si guud marka laga yimaado si gaar ah Soomaalida nooc alfaarax oo wadamada aan ku saleeno Soomaalida si gaar ah saameyn bay ugu yeelan doontaa aragtida hadda madaxweyne Cabdi oo qaatay oo ahayd inuu la safto Oromada waxaan qabaa inuu aragti ka duwan oo hadina wax u kaadiyay bal halka ay Ethiopia gaarto sidoo kale aragtida ah Ethiopia inay burburto oo Soomaalida markaa fiirisid dhibaatooyinka Ethiopia ay loo geysatay ka dhex guuxayaan aragti ka duwan aan qabaa taas oo ah geeska Afrika waqtiga la joogo wuxuu u baahan yahay nabadgelyo horumar iyo waxbarasho anaga jiilka aan ku jiro waxay ku dhasheen Soomaaliya oo burburtay oo dawladnimo aan arkinin hadda markii la sheego rag badan oo Soomaali ah waxa laga yaabaa in uurka ka naco oo waxba ka helin hadda xog dheeraad ah oo inta la qoray ka badan ah marka Ethiopia qaabkan qoomiyada hadda hadii ay ku sii socoto waxay wax badan ka hoos mari doontaa 1990 ama 90 anaga halkii aan tagnay aragtiin waxaan aaminsanahay marka in Ethiopia ay nabad hesho taas oo saamixi doonta in qaab diblomaasiyadeed horta marka la taagan yahay dal walba wuxuu jecel yahay dalka kale inuu ka hooseeyo Ethiopia aniga aragtida ah waan qabaa diblomaasiyadda marka la taagan yahay Ethiopia wax badan ay isdaba maraan laakiin aragtida ah ma qabo dagaalkii anaga soo maray 90kii oo aan ku saarnay Maxamed Siyaad Bare oo ilaa hadda aan dhaxalkeeda dhex taaganahay in wax kasta oo qofkeen qiimo noolaha dhinto ma qaba Ethiopia taalamid inay marto laakiin Ethiopia qabweynida ku jirta geeska Afrika ay moodeen xoogaa ka yar sareyso in ay dareento culeyskeeda way fiicnaan lahayd waan mahadsantiin